kusoo dhawaada taxanaha barnaamijka galka xogta ee sooyaalka taariikhda Soomaalida ee ka soo bilaamaysa 1800 sanadkii 1802 koonfurta Soomaaliya waxa awood badan yeeshay qabiil loo yaqaanay Al-Amiir iyagoo ku duulay qabiilada hareeraha ka xiga ee odwadaagta la ah iyagoo badankoodiina qabsaday Al-Amiir lama yaqaan qabiilka rasmiga ah ee ka soo jeedaan balse qoraa Faransiis ah oo wax ka qoray waxa uu sheegay in Al-Amiir ay kamid ahaayeen qabiilka Abgaal Cismaan 1806 dhinaca Shabeellada Hoose waxa iyaguna ka soo caanbaxay qabiil lagu magacaabo Silekis dadkana aad u cadaadin jiray oo dibidaabiyen jiray sida dad badan ay sheegeen Silekis waxa ay ka hadheen boqortooyadii Ajuuraan oo deegaankaasi xukumaysay sanado badan ugu dambeynna waxa uu midoobay Galadii iyo Wacdaan oo dagaal ku qaaday Silekis Galadii waxa markaasi xukumayay oo majaraha u hayay Suldaan Yuusuf Maxamed halkaasna waxa ku soo gabagaboobay xukunkii Ajuuraan iyo awoodii qabiiladii xulafada la ahaa waxa dadka dhulkaasi deganaa ay sheegeen in sababaha xukunka Ajuuraan dadku uga soo horjeesteen ay ugu waaweynayeen cadaadis cashuur iyo iyagoo cadaaladii ka leexday dhulkii Ajuuraan ay maamuli jireen wali waxa jira dad ku mahmaaha haddii isla weynaan kaliya ay wax tari lahayd Ajuuraan marnaba Soomaaliya kama tageen inkastoo Ajuuraan la jabiyay haddana waxa la sheegay in markii ay dhulka xukumayeen ay aad u xoojiyeen dhanka ganacsiga iyo xiriirka ka dhaxeeyay Soomaalida meelaha fogfog kala deganayd gaar ahaan dadkii beeraleyda ahaa ee Bantuuga iyo xoolo dhaqatadii oo wax isdhaafsigoodii iyo iibsigoodu kordhay waqtigaasi sidoo kale boqortooyadii Ajuuraan waxa ay dhistay jidad buundooyin iyo ceelal waxaana waqtigii Ajuuraan dhulka xukumayeen si weyn u faafay diinta Islaamka iyadoo meelo badan laga hirgeliyay qaadiyo shareecada Islaamka wax ku kala xukuma waxa la sheegay in Ajuuraan ay ahaayeen maamulkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee hab dawladeed u shaqeeyay waqtigaasi 1819 sheekh la oran jiray Ibraahim Xasan Yabarow oo reer Daafeed ahaa haystayna dariiqada Axmadiya ayaa aasaasay oo dhisay magaalada Baardheere Axmadiya waxa ay Soomaalida ka soo gaadhay sheekh la oran jiray Sayid Maxamed Idris Alfaasi oo waqtigu u dhaxeeyay 1760 ilaa 1837 deganaa magaalada Makka ee Sacuudi Carabiya 1823 barasaabkii haystay magaalada Mombasa ayaa ku dhawaaqay in magaaladiisa Mombasa ah ay xor tahay wuxuuna caawimo weydiistay maamulkii Ingiriiska ee Mumbai hase ahaatee ciidan Ingiriisku soo diray oo uu watay nin la oran jiray Captain Owen iyo ciidamadiisii ayaa 9 bilood kadib soo gaadhay magaalada Mombasa waqtigaasi oo aan ciidamadaasi loo baahnayn 1825 Captain Owen ayaa wuxuu booqasho ku tagay magaalada Muqdisho isagoo doonayay inuu Soomaalida ka soo dhaadhiciyo inay aqbalaan heshiis ku saabsan in Ingiriisku ka badbaadiyo Cumaaniyiinta haddii ay isku dayaan inay Muqdisho xoog ku qabsadaan hase ahaatee arintaasi ninka Ingiriiska ahaa Soomaalidu way ka diiday waxaase heshiiskaasi Ingiriiska ka aqbalay reer Baraawe 1825 markab la oran jiray Mary Annan oo Ingiriisku lahaa ayaa waxa weerar ku qaaday dad kamid ah Soomaalida berbera deganayd hase ahaatee shaqaalihii markabkaasi waxa badbaadiyay Xaaji Cali Sharmaake oo ahaa maamulihii magaalada Berbera halkaasna waxa uu Ingiriiska kaga kasbaday sumcad weyn iyo ammaan aan la soo koobi karin oo uga timid maamulkii Ingiriiska ee joogay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya nasiib darase Ingiriisku isagoo ficilkii Soomaalida ka argudanaya ayuu dadkii xeebahaas oo dhan deganaa waxa uu ku soo rogay cunaqabatayn isagoo ka hor joogsaday inay wax dhoofsadaan waxna la soo degaan cunaqabatayntaasina waxa ay socotay ilaa iyo sanadkii 1833 waxaana ugu dambeyntii Ingiriisku xayiraadii Soomaalida ka qaaday kadib markii Soomaalidu ay siisay 6,000 oo bond oo lacagta Ingiriiska ah oo magdhow ah